السلام عليكم. مقعيقة ياسمين واي كسو دو اسعاتيس waxaan rabaa maanta inaan ka hadlo Ramadaan sababtoo ah dada marku soo dhiseen dada hilibka iska soo rideen 3 bil iyo ka badan ay soo suubinayeen socod aan ku dadaalayna ma sha Allah hadda Ramadaanka marka dadna qaarkood way ku ciilaan dadna way ku caatowaan qof basiya Ilaahu abuuray ma sha Allah tabarakallah Ilaahay nabad han ugu gaarsiiyay Ramadaanka waxa aan damacsana waxay tahay wigi hal koomaan xataa inaan soo dhigo stretching wax la dhaho stretching waxa waa jirka la kala qaadayo la kala dhaqaajinayo marka hadda kordada ay soo qoreen ee leeyihiin waxa sameynaysa waa qalad marka waxaan go'aansaday aan dhahay Ramadaan iyadoo ah oo aniga arkaysiin stretching waxa la dhahay oo la suubinayo stretching jirka saas gacanta xataa la qaadayo kor loo celinayo isha dhaqdhaqaaqaas yar wax weyn una gaarsiinaa qofkii socod sameyn karin sababta waqti kuleelna Ramadaan wuu bilaabanayaa oo badan haraad badan ku qabanayo marka maxaan suubinaynaa waxaan isku dayayaa ani ahaanteyda waxa aan suubinayo dhulkaas aan fariisanayo saliga aan ku dukado waxyaalaha qaarkood aan sameeyay kala qaadayo jirka dhabarka kala bixinayo lugaha kala sameeynayo si uu murqaha isu gina qofka bani'aadamka sababtoo ah galaas aan baro waxa jira oo saas ah oo stretching kaas la suubinayo insha Allah aan rabaa inaan la qaybsado weegi halka marna isku dayaa inkastoo Ramadaan ay tahay fadlan cuntooyinka nafaqada leh aan ku dadaalna insha Allah sida oo mataqaan cuntooyinka caloosha xiraaya saga ilaalna iyo siiba saliida waa kugu soo gadoomi markaan dukanayno kala damano fiicno insha Allah marka waxaan ku dadaalayaa Ramadaanka bishaas inaan weegi hal mar aan ka soo saaro wax jimicsi dhahayo oo jirka kala qaadayo oo xanuunka ka joojina ku jirku isdhexgalaya marka istifkaasaan diidana insha Allah taala hadaa usoo subscribe suubi hadii kaleetana noo duceey Ramadaan wanaagsan suulkan thumbs up si korta. Assalamu alaykum.